wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaaladaasi. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in weerarku uu ku bilowday qarax xoogan xilli haatan halkaasi laga maqlayo rasaas. Hoteelka Tawakal oo ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo, ciidamada ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa la dagaalamaya dableyda hubeysan oo galay gudaha hoteelka ku yaala bartamaha magaalada. weerarka hoteelka oo ku bilowday qarax culus oo lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka ayaa waxa uu galaaftay nolosha dad badan. Hoteelka Tawakal oo ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo waxa inta badan dega siyaasiyiinta, waxa uu ka mid yahay hoteelada caanka ah ee magaalada ee ammaankoodu uu adag yahay. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka ka socda hoteelkaasi. xilliga la weeraraya ayaa waxa la sheegay in hoteelka uu ka socday shir looga tashanayo gulufka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidoo kale dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen inuu jiro qasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo ka dhashay dagaalka kaasi oo gaaray qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka iyo kuwa banaanka marayay. waxaana hareeraha hoteelka la keenay xilligani ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo xilligan ku guda jira sidii loo soo afjari lahaa kooxda gudaha u gashay hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo.